madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa diyaarad khaas ah ka soo raacay magaalo xeebeedda Berbera ee xarunta gobolka Saaxil oo maalmihii u dambeeyay socdaal shaqo ku joogay isaga iyo wafdi uu hogaaminayo markii madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayay ay ka soo degeen madaarka Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa waxa ku qaabilay xubno kamid ah golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida xubno xilal kala duwan ka ay xukuumadda talada haysa barasaabka gobolka Maroodijeex iyo mas'uuliyiinta golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo xildhibaano ka tirsan golayaasha qaranka madaxweynaha Soomaaliland waxa loo soo galbiyay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland iyadoo bulshada reer Soomaaliland ee ku dhaqan caasimadda Hargeysa ay jidka taxnaayeen iyadoo wajiyadooda ay ka muuqdeen dareen farxadeed waxaanay lulayeen caleemo qoyan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo boodhar uu ku xardhan yahay sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo muujinayay inay aad ugu faraxsan yihiin inay madaxweynaha Soomaaliland ku qaabilaan caasimadda Hargeysa markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisu ay soo galeen xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa ku qaabilay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiiro siyaasiyiin taliyaal ciidan agaasimayaal guud iyo mas'uuliyiin kale iyo qaybo kamid ah bulshada reer Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa mas'uuliyiinta iyo bulshada mid u qacan qaaday afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Deyr ayaa u mahadnaqay dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ee sida ballaaran u soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo afayeenku ka xog waramay safarka madaxweynaha Soomaaliland uu kaga soo laabtay gobolka Saaxil diyaaradaas oo lahaa amiir Kuweydiya oo ku nool dalka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxil madaxweynuhu safar hawleedkii uu ugu maqnaa Berbera uu soo gabagaboobay safarkaas oo ahaa safar mashaariic waaweyn oo qarankani uu fulinayo ku aadana oo ay ugu horeysay arrintii DP World sida officialka loogu wareejinayay maamulka iyo ballaarinta iyo casriyeynta dekedda Berbera shirkadda weyn caalamiga DP World waxay si rasmi ah ula wareegtay dekedda Berbera oo ah deked caalami ah taasoo ay shirkadda DP World iyo xukuumadda Soomaaliland ay ku galeen heshiis muddo 30 sanadood ah in dekedaasi si wada jir loo maamulo actually Soomaaliland iyo DP World isla markaana la casreeyo lana ballaariyo mashruucaasi si fiican buu hirgalay run ahaantii wuxuu ahaa mashruuc ku dhiirasho lahaa oo ummadda Soomaaliland taariikhda u gali doona mashruucani waa mashruuc guud ahaanba mandaqada geeska Afrika u leh muhiimad dhaqaale iyo mid istiraatiijiyadeedba sababtoo marsada Berberi waxa ugu jirta qorshaha inay noqoto meel kulmisa ganacsiga caalamka saas daraadeed weelkii ama nidaamkii aynu kula jaan qaadi lahayn ganacsiga caalamka u kala gooshaya ayay DP World horseed ka tahay dekedda Berberina istiraatiijiyadaas muhiimadeeda ay leedahay DP World waxay ku tala jirtaa inay dawladda Soomaaliland kala shaqeyso sidii loo casreeyn lahaa loona ballaarin lahaa korna loogu qaadan lahaa horumarka dhaqaale ee geeska Afrika gaar ahaan mandaqadan oo ay qarankeena Soomaaliland ugu horeeyo qaranka Soomaaliland wuxuu cadeeyay inuu yahay qaran isku kalsoon oo ay adduunyada u qaaraameyn oo aynaan gacanta hoorsanin laakiinse khayraadka dabiiciga iyo istiraatiijiyada Ilaahayna siiyay inaynu ka faa'iideysanino Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Hargeysa